Yamamoto ninka qaramada midoobay u fadhiyo Soomaaliya ama Maraykanka u fadhiya siyaasad intee ayuu ku lug leeyahay dalka Soomaaliya muxuu yahay asiga ma ganacsada ma nin dalka Soomaaliya wax ka lahaa daqli intee leeg ayaa wadanka Soomaaliya ugu soo xarooda waa ninkan la leeyahay Yamamoto oo Maraykanka oo gaaban oo siyaasiga saqiirka ah la shaqeeyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin intaba la shaqeeyo oo hadirtaan nimankii madaxweyne goboleedka ahay ku xirtay xerada xalaane oo yiri Axmed Madoobe ma duuli kartid Axmed Madoobena wuxuu iska soo jaray wallahi xanuunsanahay asigoo la og yahay ina Kismaayo lagala wareegi rabo ayuu habeen hore wuxuu ku marsiyooday waan xanuunsanahay waxaan u baahnaa gargaar degdeg oo Talyaaniga ku dhigay Turkiga wadnaha laga hayaa jugnaaf buufa ugu dhacday ma dhaqaatiira intii joogto kuwa Soomaalida hadii ku daaweey waayaan kuwa ayaan waxaan kaaga yeerayaa Maraykan diyaaradaha saaran ayaan kugu yeerayaa maraakiibta badda odayii nafaskii bartiyo juqsiyo hadda waa roon u taagan yahay wararkii kale oo soo gaaraya waxay sheegayaan Cabdirashiid Janan oo gacan saar la yeeshay dawladda Soomaaliya gaar ahaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xiriir wada ay sameeyeen oo lagu heshiiyay inuu qaranka Soomaaliya ka mid noqdo oo dhimirka dejiyo hubku haayana oo la soo gala halka balse hadduu soo galo maxaa faa'iido ugu jiro maxaa qasaaraha soo ugu jiro waa sheekada ay ka taagan tahay wax la yiraahdo Farota Keer baa taagan maxaa dhici doona taas kulitaba dadweynaha ayaa shaqo kule anuu shaqo ku melihi wixii faalaad ka soo bixinaysa sidaad ogtihiin ba madaxweyne xilku ka dhamaaday magac laga maskiin ma Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weli u fardhuubayeen ay la shaqeynayaan nimanka la yiraahdo ra'iisul wasaare علي ولا بم قرقر بم لفتجرين جوجو ولا دغالهي او uquuray oo la shaqeynayaan nimankaasu suga bal hadaraya daqli waa shaqeyna hadda karaad ku dilida bal lacag dadka beerka waa ka tuntay asigana wuxuu taagan yahay ninka shirka xalaare waa in la isku yimaado waxa yiri boorka qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiyo bayri uu taagan yahay markaas uu subax dhaweeto ku soo maqiiqay baawurta qufulana soo ku jiro ayaan ugu soo orday cid hormari karta malaka baxay shimbiru ma doolay karta qiiqa ma bixi kara diyaaradu buf male Allah waday kulada nabi ila meeshaas hay marin odayii xerada xalana uu soo galay lama haayo Axmed Madoobe ninkii kale to asigana ma jarteen lama haayo waa ka maqan yihiin shirka meeshii waxa lagu arkay Cali Guudlaawe miiran hadday miiran Cali Guudlaawe miiran ayaa lagu arkay meeshii iyo lafta gareen miiran hayya labadii ya haddana ya Cali Guudlaawe miiran way tahay iyo lafta gareen miiran ya iyo qorqor miiran iyo ra'iisul wasaariyo miiran hadda warkaygu haadi galo dadka aawe labadii nin oo kale xagee aadeen waa labadii nin oo kale xagee aadeen ma habeen Madoobe la dilay maya lama dilin meeshaan hadday soo galaan waxay ka cabsadeen am shoot man in la yiraahdo bam ina meesha lagu dilo ayay ka cabsadeen hadda waa odayga caashu marartay oo xaajiga ahay waa taqaaniya xaajiga ahay waa xaajigii hadda xaajigii weeye waa taqaaniin xaajigii ma jarteen aanu idii sheega warku haadi galo xaajigii ma jarteen aan idii sheega iyo ninkii Madoobe lugta u gaabnaay
oo ogaadeen ay idin sheegaaniga waa laba nina ogaadeen uu yahay nina majarteen yahay xagee aade shirka maxay ugu soo qayb geli waay yaa taasaa isweydiin u baahan cabsiyaa taaleed meesha cabsiyaa taalo ninkii Soomaaliya siyaasadda ku dhex madaxweynuhu asugu heshiiska ay ahaayeen oo Mareykanka ahay waxay ku heshiiyeen xerada xalane in laga dhigo shirka ninka Yamamoto wuxuu yiri moto miya masoo Yamoko ma aqaana anigu yiri Yamoko waa aqaana anigu wuxuu yiri meesha cid ka duuli karto oo nin gobol u taliyo ma jiro waa gudaha ma soo gasheena gudaha ku heshiinaysin haddii kaleeto kii diyaarad u qaado diyaarad dheerayso Mareykan aanu dira iyadoo hawada marayso ayaa meel ka cabayna هذيك كان قاعد يدينه صومالية ما سوال ولا والله مرة قاعد يعمل عرق كل مديار مراعي الكرام دري أنا راعي الكريم أحمد مدار أنا راعي الكريم كوا كلا شغفول كجراه إسكابات عفرت كوا كلا شغفول كجراه إسكابات قرقر لفت الجريني بحال داعي كي علي لداعي علي جود لاويه كوا هو مساكين كسير إسكشال أصلا لكن لبدا بارقب ما بixi karaan abarteeday ka tahay hayta ay marka ninka xilku ka dhamaaday dadkii maanta waa adduunyo baritoona waa aakhiro weeyaan camalkaaga la dhaadhacaysa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta walaalow gacali farmaajo waraa ku sheegayna soo dhawow koobkaaga shaaha cadayska ana hore u soo qaado leesma aamino shaah leesku ma shubo ina wax la isku daraa laga yaabaa soo dhawow isoona fiirso anu shaah ku siimaha waa inta soo shaah inta ku qufacdo suno ugu daray dhakab qab godka jilaco jalaq waa inta shaaha soo qaado anu keegana soo qaadanaya walaal dadkan baca ka siisa bac ka siima maqash عيالك عمر أتكون أحد هذه صباح كثير نوعي وكلا ذلك باع وسيس نيو سببته أكو شيء نيو سود وضد عرب والله عرب كورم ضد نيو والفيلم كانوا شيء كانوا جاي إلهي كمان يقول لي أنت الله هذه اللي يضم الله يقول الشهر جراية مركان عرقتان أرت نيو برنامج حلكي مركو كارنا معي ولي مدحوينا سيطة سامعنا أنا كومة ديتني ولي مدحوينا إلا متكلم كوريجي سوولي واقع madaxtooyadii tutusto ilaa inaad aad u dhiibto tutustaba laba hayo lagu heshiiyey noo hay qeyr allah ku siiye laakiin iyo kaartiista tahay kaartada ma lagu soo dhisaa masaadi kaliga la yimaada saaxiib iga dabageyna alla kugu oli waysay waxa laga yaabaa iyo waxaan waa adduunyana laga badrgeedo dhaxsi wada dhimay oo yiri ninkii afgaale walaalow gacali ina sii waarana waa laga yaabaa xil qabte iga dabagey bal aan una shaqfashi duleeyay dadku waa toloxay نعلى كقول ويسه أني يوم أنا أرجع هيقدر بجرتان أصور حريق ضيو إنما كان معارض كعمر كيراه وحسميننا حزب يقول واقعنا ما أنت تقول طب يسمر كيراه حزب يقول واقع بدبنا قرن أي سوق قرن أدونه مالك إذا بعد واحد سوق قرطي حلنا من أسوق قرطي شركة حلنا من أسوق قرطي ولا لو قعلي وعدي هراي كوبر بريث هاي أدونه وسيد البربريزة ولا لو قعلي باشة كوسو نبض نعلم أغلى جالس بدنا كوبا أنا مش شايل ورك أنا مش شايل الصومالية شايل أغلى جالس بدنا لو ما هيال شايل إيه هذا رواقع يدرج مال هيرا اللي هيرا رواينا بضحك النقطة بين عاصي توبيا حدود لا سرت بقى حدود كانوا على جرا سنتركا سوالد دكان تاين وماشي سنترالكي بلودين ku taala asigana sirta ku dhaqilay ayadana waa la rabaa balse ay kaasi dabe iga dabageynaadeen gaali nimankii dhulka la gashay xisbiga badbaadada ku dhawaaqay aduguna waxa ku dhaqaaqday maalinkii dambo ayaad waxaad ku dhawaaqday shir degdega halan aad ku dhawaaqday markaas ayaguna fashil ka wada tiri
إن أدرى وقالي باشا ويا براهاي هوا يا براهاي حد وحصوب حي بقت الجن سياسي يوقف كابينكي ويمادو oo wax u sheegaa soo baxay aad iga dabageeya warmaysiin حتى والله الجن وهابيك هو صعدا هذا جيفون خوي ما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحو كو شيغي كرا كو سياسيين جرارو جني كلا مدح او fiirsada meelaha qaarkood way ka buuxaan dad iisaan oo socdo oo saaxiib la ahaa jira hatay jinnigaas ayana waa yani meelo badan ay ku jiraan fiirsada marka ninkan hal waa yaabanahay siyaasaddan Soomaalidu kuma wada sheegi jirin oo saan ahaa jirin walaalo gacaliya yaa meel ku joog yaa wax ku soo tafatira warkana waa dheereeyeen iyo caadi iska dhig marada hay ku soo sanafine Soomaaliyeey haddana Soomaaliyeey kalama maarano dadku waa walaal dadku waa sootolreer dadku waa maaragtay wiilya abtigiis dadku maaragtay waa gacaltooyo dadku waa sukeeye dadku waa isku dhiig waa isku dhaqan waa isku dhul may siyaasaddu hal meel ha ka wada tiraado hal god ha ku dhac kala ha alla diga gooyada male waxa dhiilay marka anu nin anu yaaba ninkaas waa ninkii la yiraahdo Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo malaay markaad u baahan tahay xarigiina wadato badda ku tuurato waa la soo dabooyaa gudaha markuu soo galana wallahi billahi sir jag ku day godka jug ku jog dabool wallahi qadaha tay arkeen meeshii ku dambayso balaan aragno kollaytaba أحمد مدوبة كسماية ولا قالوا وريجي ربع عند الرجال باقي إذا مدي سيبه فورمان جادو سو حرق قشتي ولا جيسكو كوما هاي كسماية جيسكو كوما هاي ساسين كون قلب ده حمد على السلامة دليا سيجيرو سيلولا لكن ولا يتقد بقي هذه الجنة كي اللي يتقال وريجي ميلا صوت هوريا جري ولا ليال وعدي كانوا والدي ياباها وعد الدفاع يساو ما جرتين نكي نوا كاسا مدوبة هاي أصيغنا مقدشة اللي كما بيحي كرتين دو يري ودناها يغا حنون ودنا حنونا يوسو بودي ديارات دك دك بلا أدن ما أباهانا oo laga diiday habartaada ku dhima ma dhaqtaraan ku keena hawshu marayso Cabdirashiid Janan intaasoo $1,000 oo qaatay ciidamadii uu soo wareejinayo udigiina meesha lagu qataaray shacabkiina gadaal laga qabanaayo shacabku waa iska baariyaalo waa iyaga ongol in dawladdu maamusho afarta ciidan oo harto meesha joogtana ayagana waxa leeyahay walaalayaal ciidankiina soo raac Soomaaliya kama la diga gooyada bal ka taliya wallahi madaxda Soomaaliya soo kasay saasun baa u dambaynaysa ayagana saasii leeyahay sababta oo jiiso daqoro shalay waxa ku dhahay waa boqorkii reebel laakiin boqorkii reebel xaga dambe oo jiiso daqoro waan ku leeyahay xaa ka soo doontay meesha xamar in lagu gudagay waa ogtay Cabdirashiid si hadda qoora timid oo ku fakatay ba waxa la yiri meesha macluul ku aragtaa la yiri macaan meesha ku aragtay macluul ay ugu dhimataa biska soo hintin adu diyaaradda la soo gowlaynaysa adoo nool hada ka fakata nasiib aan leedahay toonka aboora ku haysto laakiin ilaahay ku badbaadsada waa leedahay المجرتينية أصهرتي المجرتينية حبلغا مقاضايا أي حبلغا مقاضايا نيكلو دارسي أما إنا قبطان كوحدة فورماجة أما إني ديلان أما حبس قوري كرديان كل بها دي قبطان هذا ويسيل عبدالينا أنا أضوع جيزك ويسيل عبدالينا يعني وأحكى لأمي يالين الوقادينية بكو دفاعي هرا ما عقدي كل لفتي ogaadini mi ma kara wallahi ma karo ana waxa dhigay marka Soomaaliya ha israacdo ninki talada wadanka gacanta ku hayaan haloo daayo wallahi aniga waa diga af Soomaaliga waa asaas kacaanku hal meel ha ka wada duulo ha noolaatado hal meel ha ka wada duusho haram cabdo hal meel ha ka wada duusho soo majeestayaashu hal meel ha ka wada duulaan war qaran Soomaaliyeed naga badan nacla duuli weysay wallahi qaran Soomaaliyeed naga badan war farmaajan maanta caynaysiin wallahi wabillahi
tallaahi adugu waa hadaadulaha leedihiin laakiin adduunku ilaahay ninka hadduu dilo siyaasaddiisa lagama daba tago wuu odiga siyaasad badan yahay wuu odiga aqli badan yahay si kasta ku ataaga waayo waa ninka ciidamada aragti noo soo sameeyey runta in qofkii bini'aadamka laga sheego ayaa wanaagsan ama daarood kale oo daaroodnimo ku soo cay ama hawiye ahay ku cay aday kuu taallaa foormaajo nin dhaamo lama hayo anugu duduleelada uu leeyahay waa ka sheega wuxuu ku fiican yahayne waa sheega cid dhaanta dhinac horta kaale dhismaha ciidanka wax ka wanaagsan uma jira shacabkana maanta intuu u tago halalaayo askarta intuu ku dalbado ma dhahayo yacni askari qaldan oo qof iska dilaa wuu jira laakiin dhinac ciidan haddii la yiraa iyo dhismo wallaahi ninka fiicano inuusan jirin foormaajo qofka bilaadanka inuu runta u saxiixdaa fiican anugu qabiilka ahay anugu maryaxaan miyi ogaadeenna miyi walaalayaal daaroodoo dhan dhinac kama soo galo ma fahanteen laakiin qofka waxaan anigu qofka aan ku leeyahay waa wanaagsan tahay waxaan ka arko foormaajo waddanka ammaankiisa ma sugin oo wanaag kuma sugin oo meel hadda wanaagsan uma jirto laakiin ciidamadii uu soo habeeye wartolo maadaama uu ciidamadii u soo jeeso ciidamo badan Soomaaliya ka soo dejiyay ninku amooba ammaanka inta wadamaka inta dhiman oo qaab darrada gobolayaasha iyo tuulooyinka ka jirto war hadda amuu hagaajin rabaa ma la isweydiiyey warna doqon haddaa aragtid waxaa lagu dayaa inaad quraan saarto maalin kasta waa doqon lalama daba taagnaade warnimo ninkan maadaama ciidamadii soo dhisay warnimo wax yar bal usii kaadsho tolnima hadday jirto ha u arkinaa inuu daarood yahay talaad u kordhiya iyaga almajeertiniya ka fuqa kabaa laadiga gooye alhawiyiina ka fuqa kabaa laadiga gooye haddana hawiye haddaad u dhiibta ilaahay kama siyaasaddu intay u dharbaaxaysaa intay aadaysaa siyaasaddiisii war kuya hawiye adinkaa isku mashquulaya berri adinkaa isku mashquulaya hawiyow anu waa ogahay haddii madax laydiga dhigo adinkaa isku mashquulaya hawiyow berri wallahi adinkaa isku mashquulaya adinkaa dhibaatay diga dhex imaanaysaa laakiin ninkan daaroodiya inu hadhoo taliya daaya ilaahay ka maqo rasuulkiisa doorkaana insha allahu tacaala ina soo noqotida kuu rajaynaaniyo anugu marna waa kusoo ataaga marna waa kusoo ammaanaha ya niyo hore u soco oo aad iyo aada u fiican tahay ciidamada weliba si fiican usii qalabay cunaqabateynta markiina laga qaadana waxaan rajaynaa inaad diyaaradii lagugu baaqay turkiga insha allahu tacaala inay noo yimaadiin aan rajaynaa salaamu calaykum waraad ugu wareeriye